محمد خير هذا دي شو الكلام ما هو أنا ما ماشي سوى معايا والله صبيحنا والله دلوقتي ما هو تبرتو بدلنا سمعنا الجواجة ما حد يجلس يا الله كلام واحد ويا حق فربا انا عقب وده انت اللي قلت شغلنا زين واحد يقع ويا مجرى دولتها بدنا حساب السلام عليكم انت يوسف عمر يوسف كور halkan waan gartay waxa naga qabataa maamul iyo warasaab gudoomiye wax walba way leedahay waan gartay hadda ma jirto waa gaadiidku waxa uu soo wadaa wadada inta u sii liidata bariisla waa malaha ilaa 5 kiiloomitir marka 5 kiiloomitir bas aad dhameynaysa bariisla kabaabigiisa waqti qaadku ama roob gudoo dhibaato fara badan laga isticmaalo marka waran garawaagan iyo dhibaatooyinkan ma soo dirnaayo isaga laftiisa wadada ka durkanaan garawaaga laftiisa waa rabiyaha nagu haya noogu wacan dhibaatada weyne ama haddana maxaa ka fili lahayn oo baan laga durkiyo rabiyahana naga kala socon hadda aga fili lahayn والله دبعت فوقلي ايام مشان aad nooga haysto Saleemaano waan gaar anagu baad meeshan hal jeeda sayid ka haysata والله meesha aad iyo aad waan gaar marka cid iska saaraysa ama meesha wax laga qabto loo tababar waa haynaniyo waay waad mahadsantahay Yuusuf qolkii waa mahadsan مدوعني معه القدوم بتاع كورة الجرواه بيسنا ماشي حراء سير سير وحق الدولة ده اللي كسر جراوير هذه مجرى وطلع دارس شوي بدل ما نقول الدولة وراء الله ولي waxba kama hayno wadada wadana wixii waajib yeeyna wixii waajib ingo wadada inta aad u six insha Allah inta wadada inga u sii liidata waa inta kiiloomitir baad u malaynaysa wallahi wadada dabiyada calba aad u taho imaka intan waxa ugu laba meelo erta inta ugu khatarsan waa halkan ilaa waa 20 kiiloomitir waa 30 kiiloomitir 30 kiiloomitir marka macal xaga kale 20 lagu daro ilaa waqti weyn tanta ilaa cashaad oo wax ka qabad badan u baahan oo tu gaadiid walaya iskaashato waxay qabato wax ka weyn bay u baahan tahay marka anagu dawaan taagay oo grifleynaynaa waan rajaynayna dawladda deegaanka adna anagu eegina waxay kula waajiba qaado nala qabo anagu cashuurtii dalka bixina oo kastankani yahay kii saddexaad ee dalka dakhliga soo gelinay
waxaan ka rajay aan beelaan meesha dakhli ka soo galay dawladdu waa inay hagaajisaa wadada waa mahadsantahay gudoomiye aad baan ku